السلام عليكم ولا قاليقا ay ku xiran janalka horumarkeena ee YouTube Ramadan Kareem dhamaan asxaabta ehelka iyo guud ahaan ummadda muslimka ah meel kasto ay joogan waxa bilaabatay bishii Ramadan waa bishii barakaysneed waa bishii dambi dhaafka waa bishii naxariista waa bishii Quraanka waa bishii sadaqada Allah inooga dhigo kuwii si dhab ah uga faa'iideysta fursadan ee eebe Allah subhanahu wa ta'ala inoogu manaystay halkan waxaan kugu soo gudbinayaa anigoo ah Abdinaasir Jimcaale fursado dahabi ah oo ku saabsan Ramadaanka fadlan aan isla dhageysano kan waxaan kugu soo gudbinayaa ilaa 6 qodob kuwa oo ah talooyinka dahabiga ah qodobka koowaad Ramadaanku ma ahan mid la isaga dhimo miisaanka jirka waxa la isaga dhimaa dambiga iyo xumaanta ونيجيسو إناد على كلية أسوميسو على كلية وعباديسانيسو كفوقو wax kasta oo Ramadan kaaga burin kara qodob kalabaad hagaaji qalbigaaga wuxuu qalbigaagu hagaajin doonaa maskaxdaada waxay maskaxdaaduna hagaajin doontaa carabkaaga wuxuu carabkaaguna hagaajin doonaa noloshaada waxay noloshaaduna hagaajin doontaa aakhiradaada si aysan aakhiradaada kaaga fasahaadin carabkaaga iyo naftaada ka adkaaw qodobka saddexaad u caabud alle sida inaad arkayso ka cabso alle meel kasta aad joogto u tuko si qushuuc leh oo hadal si dabacsan u soco si degan u cun si dheelitiran seexo in kugu filan u labiso si wanaagsan u dhaqan si akhlaaq leh u shaqee si adag waxaad helaysaa hab nololeed hagaagsan qodobka afraad dunida aan ku noolnahay ma aha goob nasasho waa goob imtixaan waa meel lagu kala saaro kuwa si dhab ah u nool dib kastana ku sabra iyo kuwa u nool si dhalanteed iyo dheel ah ha ku luminin waqtigaaga baashaal iyo madadaalo ka digtoonaw la jooga saaxiibada xun la soco dadka wanaagsan oo aad wax ka kororsanayso u shaqeyso daarta dambe ee lagu waarayo qodobka shanaad bisha Ramadan waxaa la xiraa shaydaanka waxaa la furaa albaabada jannada haddii qof muslim ah isbedeli waayo cibaadada Alle badin waayo quraan akhriska badin waayo oo uu sii wado inuu xumaan sameeyo waxa qof ka haystay ma ahan shaydaan ee waa naftiisa oo uu ka adkaan waaye shaydaanna ku noqotay qodobka lixaad u noolaw noloshaada sida in maalin kasta ay tahay Ramadaan aakhira ayaa kugu noqonayso lid Ramadan Kareem si faafi walal waad maasan tahay billahi tawfiiq صوما 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 صوما